هدا دونيسان هي وكيسان مدنمو هدا دونيسان عدوغينا إناد كأتكاتان هدا دونيسان إنا الله إذن صود دماعين بدء بر من الله إذن كصود دماعين هدا دونيسان إن لإذن كهي بيستو هدا دونيسان هي وكلمة ختن كذا midka malabka hawada ku cunayowna malabka soo deji waa lagula leeyahay midka gudinta iyo masaarta haystowna war masaarta dhigoo dawladda ha iska duminin bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd أيها الأحبة في الله أحبكم في الله عاو كلمة ذو وحي دارنتها انتهي مرض إيا مسار توا قذنت جيدها اللي قويا يا مسار ليلة هذا كلمة ذو كومن بإسو قاري أوليه آدم برد عليه وعن إسلاي وحوكتشي ذي ينبضشي على مسار كما دحوين الدري كلمة أما كلمة ذا صو حنبار صنايد تصال آدي آد رائع aad iyo aad u qiimo badan dhaxdeedana ay ku jirto duruus iyo wax lagu cilmi qaato inta fahamkaygu uu yahay ayaan doonayaa inaan kelimada aan sharxo iyo ogolaado marka hore qisada oo kooban ama tusaalaha oo kooban aan idin soo hormariyo sidoo uu sheegayba laba nin baa saaxiibo ahaa safar bay soo galeen waa ay gaajoodeen geed bay ku soo bixeen barda uu ku magacaabay kor ayay eegeen malab bay ku arkeen su'aal bay isweydiiyeen cunto malabka nooga dhow ma jirtaa maya haddaba seen malabka ku gaadhnaa labadan ninna waa dheera midna waa gaabna kii gaabnaa baa wuxuu yidhi war adigaa dheera waan foorsane intaa dusha iga fuusho kadibna geedka kor oo malabka noo soo qaad oo noo soo go aan cunne fikrad raa'ica oo aad u qiimo badan oo ay ka wada tashadeen ay ku wada noolaan hayaan weeye fikirkii asaga ahaa waa la qaatay ninkii geedkii buu fuulay macal asaf markuu gaadhay malabkii oo inuu soo gooyo ahaydoo walaalkii uu kula soo noqdo bartii buu cunid ayuu ku bilaabay kii hoos joogay markuu arkay arrinku siduu u socdo ayuu su'aal weydiiyo wuxuu yidhi war ballankii away ma keligaabaa wax iska cunaya markaasuu wuxuu yidhi haddaan geedka iyo malab haddaan anu isku helo maba hadla ayuu yidhi anigu maba hadla haddaan malab iyo geed isku helo ninkiiba wuxuu doontay marka gudul iyo masaar ayuu doontay asagana si uu geedkiiba salka oga gooyo wuxuu bilaabay inuu salka ka jaro kiiba markuu arkay ficilka uu kan sameeyay wuxuu ku yidhi war maxaa sameynaysaa wuxuu yidhi masaar iyo geed haddaan anna isla helo wax ma maqlo horta qisadaasi waa qiso duruus aad u badan ay ku jirto laakiin ma soo koobi karo anugu in yar baan ka tilmaamayaa horta geedka waxaan ku tilmaamayaa dowladnimadii malabkana waxaan ku tilmaamayaa kursigii masaarta iyo ninkan oo isla socdana waxaan ku tilmaamayaa shacabkii intiisi kale mid tartamayay oo madaxnimada lagaga adkaaday iyo mid kaloo iska caadi ah oo la isku daray shacabkii ayaanu u bixinaynaa intaan sharaxa kale u gelin sideedaba mathalku ama tusaaluhu waxaa la yidhaahdaa waa taqriibu lmuraadi lilcaqli caqligu soo dhoweeyaa waxaa la yidhaahdaa qofka wuxuu siiyaa sawir uu taaban karo walidaalika qur-aanku aad buu xoog u saaray wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun yani tusaalahana waxaa un garta yani kuwa wax garan haya oo keli a baa garta tusaalaha macnaha loola jeedo qur-aanka daraba allahu yani qur-aanka tusaalihiisu maba la soo koobi karo axaadiista nabigana sidoo kale sal alla alay slam mathalii wamathalukum intuu nabigu tusaale ka bixiyey calayhi asalaatu wassalaam waxyaabaha tusaalaha looga faa'iidaysto waxaa ka mid a in la isxusuusiyo oo qofka wax la xusuusiyo uu yidhaahdo war ilaa arrintaana way jirtay in wax lagaga celiyo la yidhahdo war arrinka aha marin khatartaasaa ku jirta
iyo inuu ku cibro qaato ayadoo loogu horreeyey oo la yidhahdo hadda ka hor waddada libaaxa qof baa maro libaax baa ku cunay amhiladaas aanu noqono marka qisadii ama tusaalihii iyo duruusta ku jirta waxaanu nidhi geedku waa dowladnimadii malabkuna waa kursigii oo waa macaan yahay guduntan iyo intan dambe dhulka joogtana waa shacabkii wey haddaba ninka madaxda kursiga ku fadhiistay horta marka koobaad ballantiguu ka baxay waa marka labaad ee danaystuu noqday aan danqanaynin oo ninkii faqiirka ahaa mar saaxiibkii ahaa mar uu odayga u ahaa ayuu ballankiina ooga baxay raashinkiina keligii buu cunay haddii marka ay bulshadii la danayn waayo musiibadaasa imaanaysa dowladdii inay dunto ayaa marka imaanaysa hadday madaxdii cadli samayn waayaan warku waa inta hadday madaxdii kursiga ku fadhiisatay hadday cadli samayn waayaan dowladdu ma soconayso way dumaysaa kaas horta waa qodob wey marka kii labaad baa ii soo hadhay kii labaadna waa maxay markuu arkay inuu ninkan gooni wixiisa u cunayo wixii la wada lahaa iyo geedkii la wada hadhsanayay dowladnimada ayuu asagana salka u jaray marka waxaan u bixiyey dumiye aan damiir lahayn asagana asna waa dumiye aan wax damiira lahayn guduntiibuu ku bilaabay waa shacabkii asag labadooda marka waa isma dhaanto kii malabka cunayey iyo kii maxaa gudunta qaatay waa isma dhaanto weeyaan arrinkaa maxaa ka dhalanaya oo aadan bare ducaale uu dadka oga digayaa wargeedkan dowladnimadii weeye ilaashada oo ku midooba oo isu sabro isu dulqaata waxay ka dhigan tahay haddaad doonaysaan midnimo haddaad doonaysaan cadowgiinna inaad ka adkaataan haddaad doonaysaan inaan la idinsoo damaacin bad iyo barri midna laydinka soo damaacin haddaad doonaysaan in laydinka haybaysto haddaad doonaysaan hee waa kelimada khatinkeeda midka malabka hawada ku cunayowna malabka soo deji waa lagula leeyahay midka gudunta iyo masaarta haystowna war masaarta dhigoo dowladda ha iska duminin oo haddaad dowladda dumisaan kanna uu tuubo gashado wixii la wada lahaa kanna uu dumiyo haddee ummaddii waa la qaadanayaa ummaddii halkaasa lagu qaybsanayaa bad iyo barribana waa laydinka qabsanayaa idinkuna waa islaynaysaan oo dhiig fara badan ayaa markaa daadanaya laysma aaminayo sida hadda labada nin ku dhacday oo kale ballanka haddaan laysu oofinin dee laysma aaminayo mar labaad idan dowladdu halkaasay ku baaba'aysaa aakhir kalima alkalaamu almacsuul qisada waxaa kaloon ayada aan ka qaadanayna oon ka fahmaynaa war markaa isla joogtaanna hadalka ha isu macaanaynina oo hadalka malab ha ka dhigina sidii ninkii markuu lahaa anaa fuulayo oo malab noo soo qaadaya hadal macaan buu ahaa markaad kala tagtaanna ha iscunina waraaci shaati yaxmi dhi'ba canha fakayfa ida arucaatu laha dhi'aabu yacni waa maxay ninka adhiga raacaya wuxuu adhiga u raacayaa inuu waraabaha ka ilaaliye haddii waraabihii laftiisa adhiga raac la dhaho adhigaa maxaa ka soo hadhaya asal allah subxaana wa tacaala ilahi waxaan weydiisanayaa inaan asiibay ujeeddadii aadan bare ducaale uu ka lahaa qisadu waa waxay xamili kartaa intaas oo duruusa ayaa laga soo saari karaa wabilahi towfiiq وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.